heesta afqalaad aqoontu miya ayaa si aad ah waxa u qabsatay barta TikTok daayarta Soomaaliyeedna waxa iskaga soo duubayeen si weyn dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa si weyn aaladan u isticmaalo balse heesaha qaar iyagoon macnahooda garanaynin dhadhansanayna kaliya erayada guud markaa ayay iska soo duubayeen waxa si gaar ah barta TikTok u qabsaday erayada ah ama kaag iyo yaab argagax aboowa macaanow ii sheeg maxaa ku daran aboowa macaanow erayadan ayaa kuwa sida gaarka ah ay iskaga duubayeen iyagoo dhadhansanaya erayada jacayl ee guud markaa macaansanayna luuqda sida talantaaliga u dhacayso ee ay ku luuqeynayaan fanaaniinta kala ah Xaliima Khaliif Magool iyo Xasan Deeriya haddaba abwaanka curiye heesta mar uu ka sheekeynay qisada heestan afqalaad aqoontu miya waxa uu yiri 1965 abwaanka oo fadhiya xafiiska ayaa waxa loo keenay warqad ku socotay isaga oo daaranayd inuu saxiixo si ay mushaarkoodii u horreeyay u helaan qoliyihii la isku oran jiray isku darka shaqaalaha warqadii loo keenay oo ku qornayd farta Talyaaniga hoosteedana looga xardhay farta Ingiriisiga laguna rogay ayaa waxa ay ka dhigtay inuu ka caroodo arrinkani waxa uu ka carooday shalay raggii aynu ka diidnay inay guumeystaan inaan wali iyaga aqoomaysanahay oo sanka aan uga tolanahay afkooda iyo fartooda inaan wali sidaas uun isticmaalayno on dulmanayaal u nahay isticmaalka fartooda iyo ku hadalkooda waa isagoo inagu leh maxaa la inoo oran waaye qiraal lacag bixin asagoo oo macnaynayo ereygii af Talyaaniga ku qoray warqadda dusha uga xardhanaa maxaa ugu qori weydeen oo wali noo daba wadaan shalay raggii halgankii aan xornimo u dirirka la galay wali aad la dhacsan tihiin suugaantii baaxadda weyneed ee uu kula hadlayay mutacallimiin ismoodka koodiina dayacay mid kalena aysan waxba ka haynin oo ku daanshoonaya waliba waa halkii noogu luuqeynaysay fanaanadii weyneed ee Faaduma Qaasim Hilowle tudciyada hore ee heesteeda ay ka mid ahaayeen dalxiis kuuguma imaan dalkaygo meel aan kugu doorsayaya mii dunidaba ku taal dalkaygo si laacayna ayuu isaguna ula hadlay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee nool qarniga 20aad inta uu fartiisa kala shaqeeyay si loo soo saaro bulsho faneed oo lahaanshiyo ku dareenta hodantinimada afkooda kuna ciilbixi karta marka ay wax cindiga geliyaan erayada heestani abwaanku sababta uu curiye midaas ayay ahayd isaga oo ka xanaaqsan in luuqad kale wali aan isticmaalayna inagoo leh af hodan ah suugaan ahaan iyo waliba hadal caadi ahaanba heesta gudaheeda waxa uu ku leeyahay ma ogtahay dib looma abuuro dadkee ma ogtahay aqoonta amaah la iskuma siiyee ma ogtahay aqoonta abaal la iskuma saartee ma ogtahay aqoonta miyaa la iibsan karaa ma ogtahay aqoonta miyaa la soo ergadaa waa intuu qofba ee begalshay ayay nala tahay